Assalaamu calaykum asxaabi kusoo dhawaada madasha aynu ku falanqeyno dhammaan taxanayaasha Turkiga iyo aflaamta Turkiga sa u taqaanaanba. Waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay arrimo xasaasi ah taasoo ka hadlaysa dhammaan masalada hadda dhammaan raba iyo inay si soonto yeelan doonaan iyo in halkooda lagu jooji doono. Warka ugu xun uguna ma aragtay in la maqla aad kaloo nacbi ah wuxuu noqon doonaa mid ku saabsan taxanaha Kurulis Orhan oo hadda si soonkiisa bilowday. Anigu dagalna muuqaalkeena haddii aad naga mid ahayn channelka subscribe dhoo kambalkan u fursiyo ku soo gaara muuqaalada soo dhigayno. Haddii aan naga mid tahayna muuqaalka like inoo saar inuu gaarsiiyo asxaabtada si meel sare aynu u gaarno. Meeshaana aynu ku yeelana asxaab qiimeeya taxanayaasha kooda Turkiga ma galeen Hindiga iyo afar shaqadeena ma kaliya waa Turkiga. Ada isbedelana yaali qabanaya. Waxaan ku bilaabaynaa musalka ama musalada ka socda kanaalka D waxa ka socda dhowr musal oo kala duwan kuwa qaarna dhax ayuuba kala wareegay oo asiga ayaa la wareegay sida Ashraf Camal. Marka kaas ayaan ku bilaabaynaa musalada ka socda iyo kuwa si soonto yeelan doona. Aan ku hormarno Ashraf waxa uu yeelan doonaa season 3 oo hadda waxaan dhamaan doona seasonkiisa labaad. Sidoo kale waxa kaloo season 2 yeelan doono musalka Murad Yildirim oo wada iyo Jamri isla wadaan wuxuu yeelan doonaa asigana season labaad oo asigana wuu dhamaan doonaa balse wuxuu yeelan doonaa season labaad oo mid la hubo. Sidoo kale waxaa jira musal kale asigana oo yeelan doona season 3 waa magaalada fog wuxuu hor u lahaa laba season aad baan looga helay musalka sheekadiisa haddana wuxuu yeelan doonaa season 3 oo halkii ay sheekadiisa ka sii socon doontaa. Sidoo kale waxaa jira musal kale oo arka Sokanlar la dhahayo lama turjumin maxaa yeelay midkan waaba waaliba wuxuu soconaa yani wuxuu ka kooban yahay 21 season يعني 20 season hor loo soo sameeyay hadda waxa dhamaanayo seasonkii 20aad oo waxa si bilaabanayo seasonkii 21aad hadda si qorshiyooyaba waaba la qorshiyooyaa macna seasonkii 21aad la qorshiyooyo hadda waxa dhamaaday seasonkii 20aad marka war meel la maruyo xalqadaha meeqay noqon karaan marka musalka lama turjumin oo Soomaali kaasi turjumi karo hadii laba shirkad xitaa isbahaysato waxay ku qaadayba muddo sanad bismillah kaas bis meesha ugu joogna gab ka dhan laakiin aydan ka dabgay horta wuxuu marayaa 500 may astaghfirullah 700 iyo 51 intaas oo sii marayo xalqa haddana waxa loo sii sameeyay season 21aad imiso sii noqon kara kan waa tagay iska dhaaf konka xalqa waa ku sii dhawiya ana hadda u sii buuxinayna macnaha waxa ugu dhiman kaliya wuxuu ahaa 300 marka iska dhaaf 300 xitaa wax xisaabinayna hadda u sii buuxinayna kaliya waxa ka dhimanba 250 may 249 maadaama oo ku dhamaanayo yani hadda uu ku dhamaado saafilayo 751 wili inuu dhamaan laga wili waba socdaaba ha ma dhamaan marka wili waa la qorsheeyay seasonkiis kalena oo bilaabo doona oo waaba la xaqiijiyay marka aynu raano barakallahu la iska dheh meesha ugu gudubna midkan ahay marka afirina xogaha iyo waqtiga irmanaan musaladan hadda aadin soo sheegay waxa ku bilaabaynaa musalka Ashraf Taag wuxuu dhamaan doonaa 10 June dhamaanaya wuxuu ku dhamaanaya xalqada 48aad sidoo kale 8 June waxa dhamaan doona midka magaalada fog wuxuu ku dhamaan doonaa asna xalqada 65aad season 2 iyo season 3 way kala leeyihiin labadoodaba may labadaba season 3 way Ashrafna season 3 oo yeelana magaalada fog season 3 oo yeelana asagana waxaana soo haray wax dambiga wuxuu dhamaan doonaa 20 June wuxuu ku dhamaan doonaa xalqada 33aad season 2 uu yeelan doonaa oo midkaan banaankiisa ku dhac marka Murad Yildirim iyo wuxuu ahaa Jamri wuxuu marka waa duubtaan ma aragtay beel waa macnaha waa qaadan ana aqbal marka ana aqbal ayagana ma aragtay waa iska qaateen macnaha okay dheer marba dooni ka aqbalay balan isla fiirina midka yaabka badnaa asigana wuxuu ku dhamaan doonaa asigana inta soo sheegnay wuxuu 700 xalqo ku dhamaanaya seasonkiisa 20aad wili waxa loo sii cusboonaysiin season kale waa ogtiin asina waxa dhamaan doona bisha May 29keeda kana ka soo horeeyo ka markuu May 29keeda dhamaado bisha ku xigta marka oo June waxa dhamaan doona 3 musal kale oo isku xigaa musaladeeda kanaalka D inay wada hal mar wada dhamaanayaan xagaaga dambe le maaragtay musal cusub limaana Agosto iyo Miras bay ayagana markaas hal mar dib u soo laabasho sameeyaan afar musal soo sheegay afarta musal hadda oo kana dhig socdo dhamaantooda si soo kale leeyihiin marka kana wuxuu ahay kanaalkan waa baasheele macna jibiga u tuusan yahay haddana marka aan ka soo tagna kanaalka D waxa aadina TRT1 meesha saxoogo ka soo qaxwayhiina waxa ugu soo horeeyay mid la dhahayo caruurtii jannada Soomaali ahaan aad ku sheegaa Turki ahaan xooga dhawaaqano inuu adkaada laga yaabaa wuxuu dhamaanayaa 8 June wuxuu ku dhamaanayaa xalqada 36aad ilaa haddana lama shaacin season 2 oo yeelan doono laakiin laga yaabo inuu yeeshto haddii intaan la soo daahno waxa laga yaabaa inuu yeelay way maadaama 8 June oo dhamaanayo muddo bil uu haysta oo May dhan ka soo horeeyay maha
laga yaabaa in si suto loo yeelo marka in loo yeeli wayna waa laga yaabaa misal kale isku waqti dhimanayaane midkuu yahana dhanka komitiga igu soo qaraadin kan wadinka sugaa waay kan ku xiga maxamed faatix mase suldaan maxamed faatix waxaan filayaa in aad u taageertaan ninkan asigana wuxuu ku dhammaan doonaa 2 Juun yacni bisha Juun 2 mareyso waxaanu ku dhammaan doonaa xalqada 83 dadka qaarna waxay dhihiin 84 laakiin 83 ayaa muuqato sidoo kale asigana waxa uu yeelan doonaa season 4 taasna iga san maho cidii ku faraxsan madaarka komitiga ka sugaa waxa ku xiga mid kale asigana la dhahay gunul dagi asigana waa mid yaab badan inkastoo aan la turjumay TV-dana aysan soo codeen midkan asigana waxa uu marayaa يعني oo ku dhamaan doona xalqada 220aad wuxuuna yeelan doonaa season 7 oo waa la xaqiijin oo season 7 yeelan doono waxa ku xiga musal kale aad u xamaasad badan asigana waxaana lagu magacaabaa abaawul ama tashkilaad ama howlgalka sirdoonka intaba saa u taqaan waa dhihi kartaa asigana wuxuu dhamaan doonaa 7 Juun oo wuxuu hal maalin ka dambeyn doonaa masalada dhamaanaya 8 Juun waxaanu ku dhamaan doonaa xalqada 84 waana la xaqiijin uu yeelan doona season 7 oo hadda waxa dhamaanaya seasonkiisa lixaad sidoo kale tashajaag budnis ama jacayl qoto dheer asigana waa ku jira maxaa yeelay TRT ayaa iskale marka asigana wuxuu dhamaan doonaa 5 Juun waxaanu ku dhamaan doonaa xalqada 31aad season 2 waa uu yeelan doonaa marka asna uga soo baxan labada TV oo Canal D iyo TRT1 adinkana dhanka community waa nagu wadaagi kartaan TV-ga masaladiisa aan dhahay inta badan aad daawatid mase aad xiisanayso labadan TV dadka kala taageero dhanka community-ga ka sugaa akhbaaradka kale waxay sheegayaan mase akhbaaradka kale aan arkay mase aan idin soo ururiyo waxa kamid ah in Safetigin Sansin oo dhamaan doono isagana laakiin warka farxadda leh waxa uu noqon doonaa in uu yeelan doono season 2 oo hadda seasonkan uu dhamaan doonaa waxa uu ku dhamaan doonaa bishan Juun dhexdeeda ilaa hadda lama sheegin xalqada uu ku dhamaanayo marka asigana misalkan waxa uu liiska ku jira misalada dhamaan doona bisha Juun ee soo socoto dhamaadkiisa hal bil ayaa ka dhiman marka si qiyaasta hadda xalqada uu marayo oo 12 Milestone 2 ahayd bisha Juun laga yaabay isbuuciyaal xalqa soo baxdo bisha Juun dhexdeeda marka hadii Juun dhamaadkeeda meelahaas aan la dhihin oo bilowga Juun oo dhamaanayo misalkan xalqada yar bisa ka raysigana team Safetigin Sansin adinkana sida la socdo imtixaaniina uu dhamaan doono balse season 2 uu yeelan doono masaladan kale ayagana yaraatli IBA ama walaal ahaa mid kala jira asna oo talinkaari la dhahamay ama aqaan waxa wadi ninkii wada boqorkii shimbiraha asagana iyo midka shirkin la dhahayo dhamaantood ayagana way dhamaan doonaan balse ilaa hadda lama shaacin balse insha Allah waxa arki doonaa gordhow markii la soo shaaciyo isla markaana la soo wadaagi doonaa bishan May ama bisha Juun labadaas mid bay dhamaan doonaan oo labada bil ma dhaafi doonaan masaladan inta hadda idin soo sheegay marka ayagana waqtiyada dhamaadaan markii la soo sheego ayaan idin soo sheegi doonaa midka yaraatay la horta waxa la sheegay in uu ka bixi doono door waliba aad u saameyn badan inkastoo ku hogaamiyaasha haddana doorka loo saameyn badan ay ka bixi doonaa teeda kale xalqada 15aad ee IBA maswala isagana waa u baaqtay sabab la jira ciyaaraha ka dhacaya dhanka Turkiga isbuuc soo socda ayuu noqon doonaa maadaama isbuucan oo baaqana isbuuc kale ayuu noqon doonaa sidoo kale waxa ku midoobi doona filim Aras Bullet iyo Onur kuwaasoo inoogu yaabsaday kii ugu dambeeyay mise taxni ugu dambeeyay isla sameeyeen ahaayeen ahay taxni ugu dambeeyay wuxuu ahaay caaqilka ama garaad saa u taqaaniin dhanka Turkigana loogu magacaabay deeha labadooda marka la isla midoobay Netflix ayaa lagu soo dii doonaa dhamaadka bishan ayuuna bilaabo doonaa duubista sidoo kale Show TV ayadana waxay shaacisay in ay taxan cusub bilaabi doonto waliba mid sheeko jecel oo aad u macaan inay sameyn doonto goordhow marka saxaabada akhbaaradkan waa kuwii cusbay laakiin mid ugu daran uguna naxdinta badan uguna murugada badan waa mid hadda aan idin soo wado waxa hadda dhamaanaya mas'al aad u xiiso badnaay taxana soo bilowday 2004 ilaa ay waqti xaadirkan oo aan joogno 2026 socday dhowr season kala duwan yeeshtay muddo badan shaashadaha ka muuqanayay waliba dhowr jilaag intay soo baxeen qaar ka tageen qaar ku soo biireen qaar ka baxeen wuxuu soo maray xaalado kala duwan oo aad aan hadda inta lagu qiyaasi karin kaasi waa taxanaha Kurus Cusmaan aslaantiisa wuxuu ku bilowday Drills Article wuxuu isku bedelay Kurus Cusmaan wuxuu isku bedelay Kurus Orhan balse hadda waxay u dhamaatay oo fashilmay taxanaha Kurus Orhan kaasoo hadda la qorsheeyay in uu ku dhamaan doono qayb 36aad waxa uu dhamaan doonaa isla bishan gudaheeda haddii uu bishan dhamaanna wuxuu dhamaan doonaa bisha soo socota hadda waxa uu marayaa 23 oo wili lama soo fasaxin 23 oo 22 ayaa la soo fasaxay marka waxa uu dhiman 4 xalqa u dhiman 4 xalqa hadda horto kaliya hadda waxa idin sheegay in xalqada 26aad oo ku dhamaan doona taxanaha Kurus Orhan silsiladii ka soo bilowday Drills Article ay ku ekaa doonto Kurus Orhan taxanihii uu aad ku macaasi jiray magaalkan ku maraya Maxamed Bostaak oo halkan ku eegay asigana kadib waxaan isla fiirinaynaa saxaabay sababaha ugu muhiimsan ama la isdhigi karta taxanaha uu ku dhamaaday
ama taxanaha gabagabadiisa waxaa ka dambeysaba sababtaas. Asxaabi haddii aan si daacad idinla hadlo oo aan dhaho sababtaasi ayuu taxanaha saan ugu noqday yacni oo saan ugu baaba'ay waa Marty sababtiisa. Maxaa yeelay Marty waxa uu dhaqmayaa si in uu ka warqabo wax walba oo dhacayo, qaabka wejigiisa, jiliinkiisa, habsocodkiisa, wixii dhanba wuxuu ka dhigay waxa iska yaacda micnaha. Xitaa wax yariis oo qiiro daran kuma laha. bal haddii dib loo eego wuxuu ahay taxanayaasha sida Ertugrul waa aragtay qaabka energy uu bixiyo, qaabka uu xarakay socodkiisa, war kaliya halka tilaabo qaado bisaba waxay ka dhignayd miya qiimo. Cusmaan oo kale si sawankiisa u waalnay oo u ahay balaayo soo isku waalay soo ma aragtay u fafag badnay ugu dambeyn wuxuu noqday markii cadowga ka weyn oo maas dhulka lagu jiidayo soo karkiisa soo kabsanayo soo taxana u ahaa mid xamaasad badan heer waxa la gaarsiinay oo ku dhuunta wuxuu ahay hoodka iyo wuxuu ahay geedaha dhexdooda heer oo ma aragtay xayawaanada miya qaar ku xalasha oo cunto ka dhigto war aad baa loo rifaadiyo waa soo jabhadeen maxamed si dawlad way noqday laakiin wali waa laga awood badan yahay oo hadda isbahaysil aan wax ma ka taraay meesha marka boqolkiiba boqol musalka wax bahdilay waa wuxuu ahay ninkan Marty dhahay bal isbarbardig Martygan iyo Sarkaan haddii aadan ka siinin oo aad taqaan Maxamed Faatix waa ninka jilay doorka Maxamed Faatix bal isbarbardig asxaabay ninka jilay doorka Maxamed Faatix iyo doorka oo jilay makaroon sheegin ya awraawa biswa way ku kacsantaa macnaha way ku kacsantaa markaan macnaha safeteed waa la baxaani way xanaajiyeen be wuxuu ahay isbarbardiga Sarkaan iyo Marty isbarbardiga labadooda yaa qatarsan qaabka jiliinka doorka soo la keenayo Marty wuxuu wataa wuxuu ahay Orhaan wataa Maxamed Faatixna asigana waxa jilayo Sarkaan jilo bal isku fiiriye marka ya qiimaynta adiga idin day sheekadu sii galay caabo kaman ina jafo way asxaabi runta isku sheegan horta Marty uma uusan hagar bixin doorka oo jilayo Orhaan boqolkiiba boqol ma aragtay uma hagar bixin waliba saa'id maxaa yeelay taxanaha waxa loo baahnaa inuu shucuurtiisa muujiyo in uu ka soo qaado wax dhaxayta oo iska warqabin wax markay dhacaan waa macnaha waa iska taagayeen sida geed qalal camal sas indhuu taagaa bis indhi xitaa qaab waxa indha xitaa marka la nuuxay qaab xaraka la nuuxay Cusmaan wax maxuu bar waayay walba taxanaasha hor maxuu soo dadaabo waa kadib lama maxuu imaa waayay marka wallahi waxay ahayd in walba doorka ma aragtay xogo xitaa inuu soo dhabeeyay ahayd waa ku dhiilay kan wax baab oo ka dhigay meesha bis waay taxanaha dartiisa uu habtay iyo Maxamed Basdaaq maadaama uu xitaa inuu iska keensaday wuxuu ahay Ibrahim Jalikol mid la jiro oo asna isha lagu hay yani asi iyo saddex actor kale la sheegay marka walba xitaa inuu keenay Ibrahim Jalikol inuu keenay waxa uu nin dheer joog iyo jamaal ilaah siiyay oo diyaarsan oo ahay xogo nin kasta inuu keensaday marka Maxamed Basdaaq waa ku dhacday midaan hadii uu baraka leh anaga waan ku dhacdo meesha waxa ku weynay taxana aad u soo jiidamayay muddo badan marka saxaabi waxaan idin leeyahay sidaas nabadgelyo ka kulmaan muuqaalkiisa xiga يا إنكستو عاو مارد أنا فرد بحي مقال كان حلو كسو جارة مشي كري يعني أنا مركل دعوة ترجع لكن أني وقت هبينا سميه مركا وحنا لا سيدا سينو بتكلي تك كل من مقال كسحجة جنال كان نصي شركة أصحابتي نصي درا لافتني نصار مقال مركزتو لفتي سبلان تو مركزتو ملك درسي جارة مركز حوادن كان نوسي لي قليه وحنا لا مركز سينو بتكلي